إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى waxaynu halka ka bilaabi doonaa kalimaad aynu ugu magac darnay القول الأمين في بيان شبهات أويس الشريف. aynu إن شاء الله تعالى halka ka bilaabi doonaa inagoo إن شاء الله تعالى muxaadaradan isku dayi doona inaynu kaga jawaabno shubahaadka wadaadkaasi uu soo bandhigay. Aweys Shariif waxa uu dhowaan soo duubay ama uu galay muxaadaro koleyta anigu laba qaybood baan arkay, qaybta koowaad oo 23 daqiiqo ah iyo qaybta labaad oo 19 daqiiqo ah. wuxuuna kaga waramayay oo ciwaan uga dhigay mowqifuna min ikhtilaafi shibli wa kishki, yacni mowqifka iyo kaalinta nagaga aadan khilaafka ka dhexeeya shibli iyo kishki. ciwaan macnihiisa sidaa yahay ayuu markaa u bixiyey. walaalku waxaad moodaa marka la eego muxaadaradiisa dee nin dhexdhexaada la moodaa, laakiin qofka soo caaqila oo u yaro fiirsada waxa uu ka dareemayaa walaalku inuu si dadban uu weerar ugu yahay sheekh shibli xafidahu llah waracah. inuu arrinku sidaa yahayna dhowr arrimood ayaa muujinaya. waa ta kowaade ciwaanka muxaadarada ayaa muujinaya. wuxuu yihi mowqifunaa min ikhtilaafi shibli wa kishki, mowqifka iyaga ku aadan iskhilaafka kishki iyo shibli. wuxuu ka dhigay macnaha khilaafka ka dhexeeya labada wadaad khilaaf iska simbaloo iska basiita khilaafaadkii iyo niqaashaadkii culimmada dhex mari jiray oo kale ayuu markaa uu ka dhigay oo wax weynba kamuu soo qaadin. ta kale waxa weeye shubahaad fara badan ayaa markaa ku jira. shubahaadkaas waxaa kow kaataanu sheegnay oo wax weeye arrinkaa ballaadhan oo waxweyn ilaa xaddul kufri wax weeyaan dee gaadhsiisan inuu sidaa u tabriiriyo oo waxweyn u tashiiliyo waa shubo wax weeye markaa dadka lagu lugoonayo. ta kale walaalku wuxuu yihi mowqifunaa, mowqifkiisii xataa alaana weli ma caddayn. inuu gadaal ka caddayn doono warmahayo oo waa laga yaaba in kelimaadkiisu ay socdaan, laakiin iminka taqriiban 42 daqiiqo in ku dhowaan daawaday, marka meelnaba kuma sheeginba mowqifkiisa ma sheegin. laakiin marka muxaadarada gudaha loo galo waxaa muuqanaysaa inuu u janjeero dhanka iyo cabdiqaadir kishki, shiblina inuu si ugu kacsan yahay oo maaragtay ayaa markaa la moodaa. waxaana muhiima in ruuxu de inuu wax weeye siduu isaguba sheegay in wax weeyaan tacasubka la iska ilaaliyo oo laga hadlo uun waxay xaqaa'iqda meesha wax weeyaan taala. marka shubhada koowaad waa taa. shubhada labaad wuxuu yidhi markuu ka warramayey sheekh cabdiqaadir kishki waxaa lagu soo eedeeyey arrimo fara badan baa lagu eedeeyey oo ay 3 ugu muhiimsan tahay buu yidhi. ta ugu horreysa alqowlu bikhalqi alqur'aan, nafyu lqadar iyo inkaaru xaddi rajm. 3daasaa ugu muhiimsan buu yidhi waxa lagu soo eedeeyey. halkaa shubaa ku jirtayoo wuxuu leeyahay waxaa lagu eedeeyey ama lagu haystaa ayaa xanku lagu eedeeyey buu leeyahy. yani macnaha marka leey shaygaas hebel hebel buu eedeeyey waxaa ka dhalanaya eeddu saxna way noqon kartaa dee khaladna way noqon kartaa. annagu waxaanu leenahay 3 mas'alo eedu maahe waa masaa'il
dee iska waadaxa weeye oo duuban oo baraha bulshada ku jirta warkiisa uu cad yahay wey wax mujarad waxba lagu eedeeyey ma aha marka halkaana talbiis iyo tacmiya ayaa markaa ku jira qodobka saddexaad wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxaan saxayaa buu yidhi kishkii baan saxayaa waxaana laga yaabaa dadka tacasubku dilana inay wax ku qaataan wuxuu yidhi kishki wuxuu yidhi shibli waa ra-iisu salafiya salafiyada ra-iiskeeda wey markaasuu yidhi kishkiyow ma adigaa u magacaabay ma adiga ayaa markaa u magacaabay markaa wuxuu leeyahay maxaad ola weyday ninkaanu ishayno maxaad ola weydo halkii aad tidhi waxa weeye ra-iisu salafiya halkaana waxa weeye waad dareemi kartaan walaalku wuxuu leeyahay cabdiqaadir kishki inuu sidaa ku tilmaamo dee sheekhu ma qalmee inuu yidhaahdo waxa weliba ninkaas aanu xitaa sheekh shibil oo dhane ninkaas aynu ishayno ayaa waxa inuu yidhaahdo ayaa fiicneed buu yidhi horta waa midoo salafiyadu markuu leeyahay kishki markuu leeyahay shibli waa ra-iisu salafiya dee qudhiisu ma laha salafiyadii baa intay isku tegeen cimaamadayoo oo wax weyn cimaamad dul dhigtay oo hogaamiye ka dhigtay oo wax weeyaan markaa doortay sida madaxweynaha loo doorto kuma laha wuxuu ka wadaa ula jeedaa waa ragga waaweyn ay ku tashadaan ayuu markaa ka mid yahay waana runtii oo taa waynu qiraynaa sheekhu xafidahu llah waracaa waxa uu ka mid yahay ragga wax weeyaan dacwaddan salafiga ah barakaysan yacni wax markaa dowr muhiima ku lahaa haddana wax weeyaan ku leh kibaarta ayuu ka mid yahay waa marjici weeye iyana odhan isaga ugu weynbe laakiin waxa uu ka mid yahay culimmada waaweyn ee wax weeyaan dacwaddan loogu laabanayo marka adigu maxaad ugu diidanta taasi waxay markaa waa sidaas intaasi wax weeye waa wax weeye markaa mulaaxadaad ama shubahaad yaryar shubhada ugu weyn aynu wakhtiga intiisa badan siin doona wax weeye waa qadiyaddii ku saabsaneed jacd bin dirham iyo khaalid bin cabdullaahi alqisri oo wadaadku wax weeyaan in badan uu ka warramay taasaynu insha allahu tacaala wakhtiga intiisa badan aynu siin doonaa intaanan taa gudagelin waxaa muhiima walaalayaal inaan horta ogaano innagu waxa weeye culimmadaas iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeya iskhilaafi doonaba yacni nina wax weeyaan dhinacayna geli maayo marka annaga waxayna saarano xaqa bayaamino oo xaqa waxa weeyaan cidduu la jira waanu raacno anigu shakhsi ahaantayda dee sheekh shibli ku raaci maayo wixii khalad iyo gefa xataa laana wax khalad oo gefa oo waxaynaan ku raacayna garan maayo talabaad waxa weeye sheekha bulshada baraha bulshada marka la eego dee waa la dareemi karaya ummadda soomaaliyeed waa sheekh ay ku kalsoon tahay boqolkiiba 89 dee wax weeyaan qadiyaddan ummaddu isagay la jirtaa waa inay ku saxsan yihiin waana ay wax weeye markaa ku saxsan yihiin taasina wax weeye maaha tacasubku waxa weeye mamquudka waxa weeye qofkii oo baatil ku sugan in baatilka lagu raaco wey laakiin qofku intuu xaqa ku taagan yahay waa in wax weeye markaa xaqa yacni wax weeye markaa lagu raacaa shakhsi ahaanteeda anigu kelmad baan ka jeediyey oo youtube-ka ku jirta oo markaan ciwaan uga dhigay radinta aflagaadada kishki oon macnaha aflagaadadiisii xiwaar ka baxsanaa aan kaga warramay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan oo shibli laftigiisuba dee muu yaraysane junuud ibliis wuu bixiyey sindiiq buu markaa yidhi kaafir buu ku sheegay waxaasoo dhan buu ku sheegay isaga qudhiisa maxaad u radi weydo aflagaadadaas aad uga hadli weyday runtii waa su-aal waarida laakiin waxaan leeyahay anigu marka aan hadalkiisa eegay wadaad kishkii duruusihiisa aan tatabuc aan ku sameeyey waxaa ii muuqatay asmaada loo bixiyey inuu wax weeyaan uu mutaystay uu mudan yahay markaa lagu yidhaahdo maadaama wax weeyaan dee arrimuu ku dhacay ay aad iyo aad u fara badanta saddexdaa iminka wadaadku soo qaaday iyo kuwo kaloo fara badan ayaa markaa wax wey jira sidaas daraaddeed baanaan waxa weeye markaa uga hadal taas markaa wax weeye waa sidaas intaa kadib shubahaadkii yarraa waanu soo ishaarnay waxaynu gudageli doonaa qaybtiigu wax weeyaan darnayd
waqtiga badanna inaga qaadan doonta anigoo insha allahu tacaala isku dayaya inaan waxa weeye soo koobo ma jecelna waqti badan idinka qaado qadiyada ku saabsan Jacd bin Dirham iyo Khalid bin Abdullah al-Qasri baanu bilaabaynaa waxaan waliba ku horeynaynaa taariikh kooban oo Jacd bin Dirham ah horta ninkan Jacd bin Dirham macluumaad fara badan يعني وحوي مركا لقما هي هذا الله واتو كتب التراجم والأنصاب والتاريخ والمقالات والعقائد كتاب وحوي سي الشامل ودم ميسرا نولشي سي من أولها إلى آخرها سي كامل وحوي وقوى الرماء وحوي هلي ميشيرو بدنا تاس مركا يدا واسدا اسمي كيسي النسب كيسا مراجع دا inta badan wax weeyada loo laabto magaciisa ma dhaafiyaan al-Jacd bin Dirham halka ma dhaafiyaanba arki meesid iyagoo magaca aabihi si dhaafinaya arki meesid waxa kale oo xagga nasabka ay kutubu siyar oo taariikh ay tilmaamayaan inuu wax weeyaan ahaa min al-mawali inuu kamid ahaa oo walaysa min al-arab marka isagu mu ahayn مواليه مركا أها لكن قبائشه يعني وحوي مركا أو وحويان حق موالده تالف تجد وحوي وذلك حسوي شيء قولني وحوي مرواني يقول هذا وحوي الله وحويان عنيه أما وحوي الله تريه علماء كلا وحويان أهل السيرة واحد تلمام عن قبائل كلا نوي شيء سكسا هاته وحوي عد إنه ورته وحويان وياهي من العجم أيام مركا مش كم وغنيس أنا عرب هاي وحيابها وحوي سيف تيمني وحاكم ذا دمجي عيسى لا دمي سري واي فرق بعد شراء أنت بدن عربته حق بترسين تودي ساري شرينو وحوي أدب لو يقانه لكن ما كان أعاجمت أهي يجوا وحوي أنت بدن أود ما ساري شرين taasi marka waxyaabaha cadeynaya kamid isaga raga wax weeyaan qaybta waxa firaq dal ama raga wax weeyaan lumay ee xaq garab maray oo dhawaxay wada xaga wax weeyaan ajamka inay ka soo jeedaan isaga waanu sheegay Jacd bin Dirham waxa la mid ah Safwa al-Jahm bin Safwan oo isaga ka dhaxlay mabda liita waxa kale oo kamid aha غيلان الدمشقي وهو من أوائل من تكلم في القدر وحكم هذا كي جهري مسألة وحي قدري أما قدر ككهل هي مركاها وحلميدا واصل بن عطاء هي وحوين عمرو بن عبيد كل قدوة عاجم ويه سدع علماء التلماميان مركا نسب كيس مقعيسة انتا سين كل عافينا أما من حيث المنطقة قبل كود دقنايا ميلاهاس waxaa loo tiiriyaa inuu deganaa ila al-jasiira al-furaatiya jasiiradda lulanjari waxaa sidaa tilmaamay al-harawi ayaa tilmaamay فأما الجعد فكان جزيري الأصل بودي أصل كيسو أمد حقا جزيرة دا لو نسبي أركان نسبة جزيرة دا لو نسبين أيوه وهرتا الجزيرة وبلد أضحية بين دجلة وفرات لبدا وبيع عراق كويا لوي halkaasuu markaa deganaa baa layidhi jasiiradaas mudun ama magaalooyin kale ku yaala sida Mawsil iyo Harraan iyo Raqa ama Raqa iyo qeyrkeedba way ku yaalaan halkaas markaa wax weey ay ku sheegaan meeluhu markaa marmaray waxaa kamid ah Jacd bin Dirham sana soo sheegnay jasiiradaas wax weey markaa loo tiiriyaa loo nisbeeyaa واسداسوي شيخ سلام ابن تيمية وحليه قال الإمام أحمد بايري وكان يقال إنه من أهل حران وحالو رنشري بوري أما اللي هذا إنه جعد كمذا هذا كحران شيخ سلام ابن تيمية سدايري سداسو كلا ابن عساكر وحليه وقيل إنه كان من أهل حران وحلم إذا ذهبي وأصل من حران يري
marka waa sidaas weey culimo kale oo meelo kale sheegayna way jiraan sida ibnu kathiir oo kale yiri waa shaam meelaana way jiraan adoo hadda wax muhiim oo taa naga sii xidhan ma jirta waa un iska macluumaad kooban oo idin siinaya way halkaas ayuu markaa daba magaaladaas ayuu ku barbaaray وكان يسكن الجزيرة الفراتية في أول أمره intii hore xaggaas u deganaa halkaasuu markaa macalinimo shaqo kaga bilaabay sidoo kale wuxuu mu'adiba limarwan bin maxamed ninkaasuu markaa mu'adib u ahaa waayo markaa marwan bin maxamed badhasaab buu ka ahaa waxway markaa meesha jasiire la yidhaahdo ay waxay maalmihii hishaam bin cabdilmalik wey kadib wuxuu u guuray ilaa dimashq caasimadii waxay markaa khilaafada ayuu markaa u wareegay وسكن فيه halkaas markaa degay halkaas markaa xogaa wax weeye markaa uu deganaa ibn Asakir wuxuu leeyahay kaana yaskunu dimashq halkaas uu deganaan jiray walaw biha daar gurina waa ku lahaa ibn Kathir wuxuu tilmaamayaa annahu kaana yataraddad ila wahb bin munabbih waxa uu ku noqon jiray ninka wax weeye wahb bin munabbih lama sheekhaas waliba waxa laga soo wariyaa annahu kullama raaxa ila wahb yaqtasil markasoo xaqiisu carraamayo uu meedhan jiray wuxuu oran jiray ajma'u lil aql marka la qubeysto taasa xaga kulminta aqliga iyo soo jeedka iyo firfircoonida yaani uu fiican marka oran jiray culimada qaar waxa tilmaamaan ibn Kathir oo kale waxa tilmaamaa inuu waxa meelaha u deganaa yaani waxa marka kaniisado iyo xaga wax weeyaan uu ka agdhawaa waatu wadaad ku haystay shibli wuxuu yiri markuu ka horreeyay kishki shibli wuxuu yiri kishkina wuxuu yiri Khalid bin Abdullah al-Qasri hooyadii baa nasraaniyad ahayd dabeetana isaga waxa ma tacliiqin halkaas ku daayay wuxuu yiri shiblina wuxuu yiri Allah al-musta'an Ja'd ibn Dirham ayaa wuxuu la degaraamo uu daris la ahaa yaani markaa nasaarada ay markaa ama kaniisad meelahaas waxay markaa la daris ahaayo halka waxba laga raadinayaa buuri markaasuu waliba sheekhu isagu qudhiis halku degan yahay marka taas waxa tilmaamaysaa waxa waa xamliga weerarka wadaadku waxay markaa sheekh ku soo qaaday iyo markaa taas tilmaamaysa oo culimadii baa tilmaamaysa markaa xaafaro ku godan ku jira adigii baa markii dambe qiray inuu wax weyn sida ahaa waxba waqtiyana kullamin siiradiisa waxaan soo gudbaynaa bidacuhu wa maqaalatuhu bidacooyinkiisa iyo hadalladii ninkaasi waxay markaa leeyahay bidacooyin fara badan buu leeyimi dhowr been insha Allah ta'ala ka tilmaami doona tawraysa bidacu leeyimi waxa kamid ah bid'atu khalqi al-Qur'an ama al-qawlu bi khalqi al-Qur'an inuu quraanku yahay makhluuq wax weey markaa waa qofkii wax weeyaan bilaabay weey اللالكائي وحولية شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جزء أفراد صفحة صدح بقولي سديتني لبا سو كورني عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم قف كي جهري بدعاء ليمي إن القرآن مخلوق يهي جعد بن درهم بوها بولي ابن عساكرنا في ترجمات الجعد wuxuu isagana ku yiri mukhtasar taariikh dimashq juska li xasaf hada konton awwalu man qala bi khalq al-Qur'an way kasbiisaba qofkii ugu horeeyay oo yiri quraanku waa makhluuq isagu habuul al-imam al-harawi wuxuu leeyahay fi dham al-kalam safhada wax weeye 304 wa amma fitnatu inkar kalam Allah fitnada inkiritaan kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala فأول من زرعها جعد بن درهم قف يجوه الرياب باري أو واحد بدعاء دولك كيري جعد بن درهم وأبوري فلما ظهر جعد مركو صوبحي أو وركي ساس مقالة سوق قاري قال زهري وحوري واي ليس الجعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعد كمد ماها ومد وحي النبي محمد ابن الأثير وحولي الكامل في التاريخ جزء كشنات صفحة أفر بقولي الله باتني سجال وحى لو مجاعب شري لو نانس شري مروان بالحمار والجعدي بالورنشري وأنا كذا نسوي شيء
لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن وحوها كبرتي مذهب كان إنه قرآنكم مخلوق يهي جعد بن درهم بو كبرت كذلك وحوي مسائل حق قدرك وقيل إن الجعد كان سنديقا وحليرين جعدها إن منافقة وإسلام كسكو قرني ابن كثير وحليه في ترجمة الجعد البداية والنهاية جزء سقالات صفحة صدح بقولية كنتون هو أول من قال بخلق القرآن إمام الذهبي وحوري وكان الجعد أول من تفوه بأن الله لا يتكلم جعدوه حانك يقول ريكو هذلي إنه لا سبحانه وتعالى هذا البا سيوطي وحليه في الأوائل أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم بوها sidoo kale haddana mar labaad الذهبي في ترجمته في الميزان الاعتدال وحليه مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك يوم النحر والقصة مشهورة وحليه مركا نكن هو مبتدع بدع لين ضال أولمي لبدا سوى كالدلنا ينبه زعم وحو شيكت أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إنه إله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم خليل بكرين ولم يكلم موسى تكليما إله سبحانه وتعالى لبا هضلبا يعني وحي مركا نبي موسى ومالا كشكنا وحيان وتلمامي ولها وأنكو قناعسانه ولا هوي ووحي ومجاسي جيد با وحي عدك جيد لو أبورو مقلي الرما وحي مركا لغو مارساني هل كروك لا ما المجاس وقلي كرام ما هوا لأن إله سبحانه وتعالى وحري وكلم الله موسى تكليما مستر المطلق وعامل كيسات كيني وحكى لما احتمال حقيق مويانه مجاس ما بقبل كرب واي أن كصعنه الإمام البيهقي وحوليه في الأسماء والصفات صفحة صدح بقول يلا بعتنيشن بعد أن ساق بأسانيد أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق حوليه ولم يصح عندنا خلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنه أجمعين وأول من خالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم فأنكر عليه خالد بن عبد الله القصري وقتله وحليه مركا خلاف وحيان كما أنصحين وخلاف لقى صهرين عيد كم إذا وحيان ذاتك حلقي أصحاب الرسول كائن أولاين إيه وحيان حلقي تابعين قفقوه الريج جماعة خلافة ويسقوا بدعادة لي مادة جعد بن درهم بوها مركا شداسو مركا وتلمامي إمام الطبري وحليه إن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم قال ابن المعاذ الحنبلي والجعد هذا وحلي مركا جعد كان لغا شاكينيو وحوا قفكيغو هريه انكره صفوينك إله سبحانه وتعالى isaga yaana wax markaa ka inshaar ay wax weeyaan ka fiday maqaalada wax jahmiyada ay markaa ku inkaraan wax markaa sifada way imaam الذهبي مرصدحاد وي wuxuu ku leeyahay fi diiwaan الضعفاء صفحه 6 والجعد من الدرهم الضال ذبحه خالد القصري وحواني وحوي اللمي وحابريي مركا خالد بن عبد الله القصري أنكر أن إبراهيم عليه السلام وحوي خليل الله وحوي إنكري إنه إبراهيم يهي إلهي سبحانه وتعالى خليل كيس مركا وحوي بدعة كوادي وبدعة خلق القرآن طلبات وحوي الليمي وحوي إنكاري وحوي إنكري له صفات إلهي سبحانه وتعالى أبو الديدي سدوك الله وحوي إنكري أن الله يتكلم حقيقة إن الله سبحانه وتعالى هالله واديدي وحكى له إنكري أن محبة الله سبحانه وتعالى وحول الله سبحانه وتعالى عد ما على هذا إنكاره محبة الله لأحد من عباده عد كم إذا الدوليس إلهي ما على هذا بودي وبالتالي أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهلكم مركز ده كدي دي هاي ولي هاي إله سبحانه وتعالى إبراهيم خليل كما دجان waxaa kamid ah bidcooyinkiisa waa tashanaade waxa wax weeyaan nusuustii ka horgeeyay aqliga ayuu nusuusta wax weeyaa ka horgeeyay waana qofkii wareey bidcadaas la yimaada sheekh salaam taymiyana waqtigaad mudaynahaye oo tilmaamay waxa ugu noqon kartaan dar'u taarud al-aql wal-naql juska shanaad safxada 244 ayuu markaa kaga waramaya بدعة اللحاد أنك أسكت عي وحوي كمذا
qadarka ayuu markaa diiday marka masaa'ishaasi mid waliba haddii la isu taago dee keligeed bay kelimaad noqonaysa aniguna wax weeye markaa dee waxaasoo dhan tafaasiisha inaan galo ugumaan talagelina macluumaadkaan idinka siiyo baan ugu talagalay intaa kadib markaynu ninka aynu garannay waxaynu insha allahu tacaala isku dayeynaa wax weeye markaa qisadii ku saabsaneed dilka jacd binu dirham horta jacd binu dirham sida wax weeyaan ahlulcilmi fara badan ay soo naqlinayaan waxaa dilay khaalid bin cabdillahi alqisri baa dilay weliba waxa weeye maalin ciid ah ciidunaxri ah carafa ah ayuu markaa khudbad weliba meel ummadda isugu yimaadeen buu yimi khudbad buu akhriyey dabeetana wuxuu yidhi idinkuna iska laabto udxiyaysta anna wax weeye ninkan ahlu bidaca baan ku udxiyaysanaya ayuu markaa yidhi qisadu horta sidaasay culimmadu ay wax weeyaan kusoo wada naqlinayaan kutubi siyarkana kutubo badan baad wax markaa aad ka helaysaan oo aimada waaweyn ay soo naqlinayaan haddaba walaalku waxa uu qisadaas ayuu waxa weeye markaa shubahaad ku soo arooriyey oo markaa leeyahay qisadaasi ma sugna weliba jasminayu leeyahay maba sugnaba qisadaas waa midoo dee shubahaadkan isagu keenay mid isagu hindisay maaha waa mid looga horreeyey weliba bidaat isagu shubahaadkan muxaadaraadkiisan ku jira waxa uu ka soo naqlinaya ninka la yidhaahdo mashhuur binu xasan sulaymaan kitaabkiisa wax weeyaan qisasu laa tahbut ayuu markaa ka soo naqlinayaa ilaa wax weeyaan 4 cilo buu sheegayaa xabad shanaad buu isagu ku darsaday oona hadda xasuusanayuu isagu ku daray laakiin kulli wax weeyaan intan bay ku wareegayaan haddaba bidcadaas ninkaasi la yimi mucaasirka ah waxaa si fiican uga jawaabay oo wax weeyaan jawaab muqnic ah oo wax weeyaan markaa aad wax weeyaan idin qancinaysa aad keli karaysaan waa cidda wax baxthi karaysa wey maqaalka uu ka diyaariyay doctor maxamed bin khalifa at-taymimi ayaa markaa maqaal ka diyaariyay ka qoray marka isaga ayaad ugu laaban doontaan waanaad helaysaan shubahaadka wadaadkaasi keenay waxaynu kaga jawaabaynaa jawaabta doctorku ka bixiyey shubahaadka wax weeyaan mashhuur binu xasan binu sulaymaan sidaas wey wuxuu yidhi markaa haddaba waynu gudagelaynaa wuxuu leeyahay saaxibu kitaab qisas laa tahbut juuska 3 baabka 5 min qisas al-umara was-salaatiin القصة 29 قصة 29 oo ku saabsan gowracii Khalid bin Abdullah al-Qisri Jacd bin Dirham wali wuxuu ciwaan uga sii dhigay tanbiihaatun haama wuxuu yidhi waa mima waxyaabaha daciifinaya qisadani waa umuuran soo socda buu yidhi waqtiga inagu yar ko wuxuu sheegay qisadani waan iskaaf Soomaaliyeena si aan waqtiga uga faa'iideysano كل عربي ولا سكوت فهمية وحولية مركا كو قصدني وحيكون رجس ميدار كيدو وعلى الضعفاء والمجاهيل والرواة والضعفاء يكوا ولا الجرينين أي مركا يكون رجسا مركا استاسرادد فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد قصدها سمسوقنا مركا لو لابتو معاييرت مقاييس وحن تذكر وحن نقدية ay markaa ku socdaa marka la eego ma sugna buuri taasi waa kow talabaad wuxuu wax weey yiri aan ku sugnayn ninka la yiraahdo Khalid bin Abdullah al-Qisri nin wax weey siiradiisu ay fiican tahay maaha taariikhdiisa markaa wax weey mugdiya nin markaa wax weey ahlu sunna ah ma abu ahaynba yaani wax markaa taasu markaa tilmaamay oo wax weey isaga laftiisu waa sheegayo meetaad saddexaad baan ka dhigaynaa taasi waxa markaa waa qisada waay wax way markaa tarjumada Khalid bin Abdullah mugdi gashay way tasaddexaad wuxuu markaa leeyahay lam yakun min hammi amthal al-Qisri Khalid wax weeyaan bin Abdullah al-Qisri ya rag la midka ahaa waqtigaas yaani kamid baba hamigooda iyo qiiradooda ila markaa wax way soo istaagaan oo ay ka hortagaan ni wax bidca la yimi diinta wax ku soo kordhiyay ay ka dhiidiyaan
xeer ay wax weeyaan gacantu la tagaan ay gaadhaan yacni wax markaa umaba qalmaanba halkaa wax markaa ma gaadhsiisna markaa sidaas daraadeed waxaa dhici karta inaan arrintu aanay diin ahayne siyaasad markaa wax weeye loo dilay walaalka laftigiisuna uu tilmaamay awi shariif uu tilmaamay uu leeyahay waxaa dhici karta in siyaasad loo dilay waa xilligii mudaharaadka iyo thawraadka ay kaceen bay ahayd markaa wax weeye shubhadaas dee ninkaas ayuu marka soo naqliyey marka insha allahu tacaala waxaynu isku daynaa inaynu ka jawaabno jawaabtuna maaha midaan jeebadeeda kala soo baxay dictoorkaas ayaa wax weeye markaa qisadaas ka jawaabay jawaabtiisu maan idiin soo naqlina insha allahu tacaala inamaa naxnu naqalatu kalaami ahli lcilm dictoorku wuxuu kaga jawaabay ama shubahaadka looga jawaabayaa kow horta marka hore weeyaane ninkan xasan mashhuur xasan oo aweys wax ka soo naqliyey waxa uu simay cilmu lxadiidka iyo cilmu taariikh fii manhaji naqd ayuu markaa simay waxaan ognahay cilmiga xadiiska iyo cilmiga taariikh falikulli waaxidin minhumaa qawaacid wa dawaabit takhusu mid waliba wuxuu leeyahay qawaacid iyo dawaabid u gooniya marka waxaan walaalka weydiina aweys aanu leenahay qawaacidda loo dejiyey axaadiista iyo qawaacidda waxyaana ay siiradu leedahay ma isku mid ba siirada sugnaanshaheeda waa waxaa loo shardeeyaa dawaabidii xadiisku ku sugnaanay waxway markaa taasi waa su-aalaanu ka doona jawaabteeda wey sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay isagoo arrintaa tilmaamaya qaala alimaam axmed halaathatu culuum laysa laa usul saddex cilmi asal ma laha almaqaazi walmalaaxim watafsiir yacni wax wey markaa dagaalada qisaska iyo tafsiirka lafdi kale waxaa ku jira laysa laha asaaniid loo raaco sida axaadiista oo kale ma laha macnaha sheekha hadalkiisu wuxuu noqonayaa in dee wax sida qaalibka ah qisasku ay yihiin yacni waxa mursala iska tahay oo wax weeyaan si oral ah loo kala qaadanay laakiin wuxuu leeyahay markaa sheekhu faidaa kaana shay mashhuuran cinda ahli lfan shayga hadduu yahay mid caan ah dadka fanniga takhasuska u leh agtiisa oo wax weeye duruqiisuna ma ay wax weeyaan tacadudaan khalaas fahada mima yarjicu ilayh ahlulcilm waxyaabaha ahlulcilmigu ay u laabtaan buu ka mid yahay bikhilaafi hayrihi waxaa wax weeyaan marka hadalkaas ku yaala الرد على البكري صفحة وحويان 86 إلى 87 آيات كيليس وحلا قاعدنا يا دبا كلام كشيخ سلام ابن تيمية وليه مركا وحويان معاييرت مقياسك أهل نقدية لا بمركا أي نقنس وحو ليه كو أن يكون شيء مشهورا عند أهل الفن شيء يقولوا يا شيء مشهور عانه ضدك فن يا علم قولي أكتود واحد مشهور وينه هذا طلبات تعدد الطرق نوايا الله له هذا وحويان قصدا كصابسا ديلك وحو جعد بن درهم لبدا شرط با وحوي كل مسانس شرط هوري ان وحوينا قصدا عان نقطه وقصه رنتي عانوي ان قصداس قصه مشهوره اي tahay waxaanu ka soo naqlinaynaa amba waxa weeyaan tilmaamay laba caalim oo waaweyn min kibaar culamaa al-islaam oo waxa uu leeyahay mu'arriqiina oo wax weeyaan jalaaladoodana la isku waafaqsay ayaa wax markaa qiray ka koowaad waxa weeye waa imaam al-dhahabi wuxuu tilmaamay in qisada ay mashhuur ay tahay ayuu markaa wax weey uu tilmaamay fi miisaan al-i'tidaal baad ugu noqonaysa ibn kathiir baa isaguna sidoo kale wax weey isaguna tilmaamay oo yiri qisadani wax weey markaa waa qiso wax weey mashhuura ay markaa wax uu tilmaamay way sidaas way markaa daba taasi wax weey xagga shuhurnimada caanimada qisadani mashhuur tahay labada caalim baa naga filan waana muhiim weeyaan in markaa labada fanni يعني وحي قواعد لا إلالية نويس إن وحن لنا هاي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم طلبات حاجة تعدد طرقنا وحي لبا الطريق بكتمي لبا الطريق ولا لكو شيء ولبا وحيان حتى المعنى علل أي مركا أي ليهين واي waxaase wax markaa isweydiinta leh
dee qisadoo tilmaanay oo sida axaadiista oo kale dee dawaabidda axaadiista loo dejiyey sugnaasho qisada waxa weeye markaa loo shardi maayo sida sheekh islaam ibnu taymiya waxa weeye markaa uu tilmaamay ta kaleeto waxa weeye akhbaarta taariikhiga ah dee waxa weeye way ka sahlan tahay waxa weeyaan ta kale marka la eego waxa weeyaan xagga axaadiista wey waay sidaas wey labada sanad ee ay ku soo arortay mid ka mid a walaalku markuu tilmaamayey oo inuu wax weeyaan uu naqdiyey ama uu daciifiyey alcalaamatu alalbani caleyh raxmat ullahi tacaala tacliiqa kitaabka waxa alculuw lidahabi markuu ka warramayey abi xaatim inankiis oo wax weeyaan isaguna ka warinayo ciisa binu cimraan uu leeyahy markaa katabtu canhu biramla waxaan wax kaga qoray magaalada wax weeyaan raamalla waay dabeetana fanadara abi fii xadiidi aabbay baa xadiiskiisa eegay faqaala wuxuu yidhi waayahay dabeetana wuxuu yidhi annahu hayru saduuq waa nin wax weeyaan runta aan aqoon weyn dabeetana fataraktu ruwaaya canhu waabaan ka tegeyba ama yadullu xadiidu annahu hayru saduuq xadiiskiisa wuxuu tilmaamayaa inuu mid run sheegay keyrkii uu yahay dabeetana uu ka tegey buu yidhi wax weeye markaa imaam albani wuxuu leeyahy qultu isagoo tacliiqinaya walacala riwaayatuhu canhu hadihi alqisa waxaa lagana qisa tahay liannaha laysa xadiidan marfuucan sidaasuu markaa tilmaamaya marka halkaa waxaa laga dareemayaa inuu wax weeye markaa farqiga uu u sameeyey imaam albukhaari qisada wax weeye markaa waxaan u jeedaa shubada labaad oo tarjamada wax weeyaan ku saabsan khaalid bin cabdillah alqisri runtii halkaa wax weeyaan mashhuur xasan uu isku tanaaquday tanaaqud weyn buu markaa ku dhacay iska hor imaad inuu isburiyo hadalkiisa waayo markuu ka warramay qisadii dilka waxaan jacad ibnu dirham wuxuu shardiyey shuruudda ay shardiyaan muxadisiintu in wax weeyaan sanad muttasil ah oo wax weeye markaa khaalid ah wax cilal ah ayuu markaa u shardiyey laakiin markuu ka warramayey qisada wax weeyaan muxuu ah siirada khaalid wax weeye markaa wuxuu yidhi qisadiisu wax weeye waa qiso wax weeyaan mugdiya isaga wax sanad uu sheegay ma jiro marka waxaanu leenahay ninkaa wax weeyaan khaalid bin cabdillah alqisri bal waxaad keentaan sanad muttasil oon cilo lahayn oo tilmaamay inuu ahaa nin khayr laawo ah wax khayrba aan lahayn qofku wax weeye bashar weeye khayr waa yeelan karaa sharna waa yeelan karaa waqtigaa inagu yar waan ka cararaya weliba waxaa kaga horreeyey ninkan mashhuur waxaa kaga horreeyey nin la yidhaahdo jamaal alqaasimi kitaabkuu bixiyey taariikhu ljahmiya walmuctasila uu markaa tilmaamay inuu ninkani wax weeyaan nasaarada gacan siiyey cali wax ka sheegi jiray culimo kalena way jiraan si isaguba wax weeyaan uu soo naqliyey ta saddexaad inuu leeyahay waxaan isagoo kale dee nin u qiiroonaya diinta oo bidcada nin ahlu bidci muxuu bidcaba la dagaalami tuu leeyahayna waxaa arrinta iyada khilaafaysa ibnu kathiir baa khilaafay marka haddee ibnu kathiir iyo wax weeyaan mashhuur iskhilaafaan iyaynu raacnaa waxaynu qaadanaynaa ibnu kathiir waxaad ugu laabataa waqtiga ugu yare albidaaya walnihaaya mujalladka tobnaad safxadda 21 halkaasaad wax weeye markaa ugu laabanaysa intaa kadib wax weeye haddaba qisada mar haddaynu sugnayn qisadu ay jirto wuxuu yidhi ninkaas wax weeye in diin xumo loo dilay cid wax weeye markaa sheegtay waqtigaasa miyay jirtaa horta waa mida waxaanu leenahay sida wax weeyaan dee ay tilmaamayaan ahlu siyarku tilmaamayaan dee wax weeye ninka si qarsoon looma dilay bannaanka wax weeye markaa lagu dilay ummadda hortoodu markaa uu wax weeyaan kelmaddaa ka sheegay khaalid bin cabdillah alqisri dee culimmadiina way joogeen oo taabiciintii baa joogtay oo waxaad leedahay markaa taabiciintii waqtigaa joogtay dilka wax weeyaan khaalid bin muxuu ahaa dirham jacad bin dirham abay ogeen mise waxaa le way ogaayeene dowladday ka cabsadeenoo markaa wax weeye kamay hadal markaa taa adigaa lagaa doonaya culimada qaar waxay tilmaameen culimmadu ay raalli ka ahaayeen waxaa ka mid ah sheekh islaam ibnu taymiya waxaa inkastaan iminka naqligiisa u qornayn minhaaj sunna iyo majmuuc ulfataawa mid ahaan ayaan ku arkayay inuu leeyahay beerida culamada islaam baa lagu dilay haddii loo baahdo insha allahu tacaala ta dambana wax weeyaan insha allah ku sheegi doonaa waxaa ka mid ah ragga sheegeen culimmadu iyo dadkiiba ay raalli ka noqdeen addaarami ayaa wuxuu leeyahay waxaa dilay markaa jacd khaalid bin cabdillah alqisri baa dilay meesha waasid la yidhahdayuu ku dilay maalin adxaa calaa ru'uusi man shahida alciid
macahu min almuslimiin dadka halkaan ay joogaan dadkii salaada ciidda yimi ay joogaan cidina wax weeye markaa kuma ceebeynin cidna wax weeye markaa kuma dacnin bal istaxsanuu dalika min ficli waabay wax weeye wanaajisteen shay wanaagsan baa samaysay yidhaahdeen wasawabuhu min ra'yigiisana way taswiibiyeen waxaad ka helaysaan alraddu cala aljahmiya lidaarimi ayaad markaa wax weeye aad ka helaysaan sidoo kale abu maxamed ataymi wuxuu tilmaamayaa fastaxsana annaasu minhu dadku way ka wanaajiseen arrintaa uu sameeyey waana wax weeyaan u duceeyno jasaahu llahu khayra bay yidhahdeen caqaa'idu 73 firqa juska koowaad safxadda 287 ayaad wax weeye markaa ugu laabanaysa marka akhiiran su'aal baan u diraynaa walaalka aweys waxaanu leenahay kow aduu aad leedahay waxa laga soo naqlinayo wax weeyaan jacd bin dirham waxba kama jiraan nin hagaagsan buu ahaa oo dulmi baa loo dilay miyaad leedahay taasi markaa waa su'aal weeye oo sidaasaad ku difaacaysa ta labaad wax weeye labada wax weeyaan cabdiqaadir kishki dee wax weeye mukhaalafaad far badan oo diini ku dhacay miyaad wax weeye aad ku taageersan tahay oo wax weeye markaa warkaaga caddee insha allahu tacaala wixii dambe soo siyaada dib baynu ka sheegi doonaa hada wabillahi towfiiq subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk